duqa magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen mugaab ayaa dagaal iyo jahawareer ka dhex abuuray xisbiga madaxweyne xasan sheekh ee cadaaladda iyo wadajirka. xasan sheekh iyo nidaamkiisa ayaa ku rafaadsan inay doorasho geliyaan guud ahaan dalka, gaar ahaan magaalada caasimadda ee muqdisho. dhowr jeer ayaa isbeddel lagu sameeyey jadwalka doorashada, sababahana waxaa ka mid ah gaabiska maamulka gobolka banaadir oo la xidhiirta doonis shakhsi ah. mar kale ayaan dul istaagi doonnaa gaabiskaas iyo sababaha dhabta ah, laakiin markaan aan eegno xiisadda mugaab iyo madaale. yuusuf xuseen jimcaale madaale, guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir, waa mid ka mid ah aasaasayaasha xisbiga JSB ee uu hogaamiye madaxweyne xasan sheekh. wuxuu ku saf ahaa madaxweyne xasan 13 sane la soo dhaafay. waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah xubnaha ugu daacadsan ee uu haysta madaxweyne xasan sheekh. si kale markii loo yidhaahdo, waa xubin la hubo inuu gar iyo gardarraba xasan sheekh la joogi doono inta uu damac siyaasadeed ku jiro. mugaab kama tirsana aasaasayaasha xisbigan haatan laysku haysta musharaxiisa. intaan duqa magaalada laga dhigin, wuxuu mugaab la joogay oo uu heshiis siyaasadeed la galay madaxweynihii hore shariif sheekh axmed, isagoo qabay inuusan xasan sheekh xal u haynin dalka, iyadoo la heli karo qoraalladii iyo waraysyadii uu bixiyey xilligaas. laakiin tan iyo markii uu ra'iisul wasaare xamse ka shaqeeyey in duqa magaalada laga dhiga mugaab, wuxuu ninkan si fiican u jilay inuu xasan sheekh daacad u yahay, tiyo aan ilaa hadda la ogeyn inay kala dhammaadeen isaga iyo kooxda madaxweyne shariif sheekh axmed. mugaab wuxuu xisbiga JSB ku biiray dhowr bilood ka hor. aan u soo degno doodda musharaxa duqa caasimadda ee xisbiga madaxweyne xasan sheekh. doorashada hadda la sugaayo laguma dooranayo duq magaalo ama guddoomiye gobol, oo taas dib ayaa loo dhigay, waxaana la dooranayaa golaha deegaanka ee degmooyinka, kuwaasoo iyaguna dooranaya guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir. laakiin mugaab ayaa shaqadii doorashada muqdisho hoos u dhigay, isagoo shuruudihiisa ku daray in marka hore la ogaado cidda mustaqbalka xisbigan ku matali doonta loolanka duqa caasimadda. sida uu dhigaya xeerka qoran ee xisbigan, waxaa loo baahday in la aado doorasho xisbiga dhexdiisa ah oo qofkii ku adkaada uu noqonayo musharaxa xisbiga ee duqa caasimadda. laakiin taas kuma qancin mugaab oo fahamsan in gudaha xisbiga uu ku xoog badan yahay madaale, gaar ahaan dhinaca guddiga fulinta. isagoo taas ka cararaya ayaa la sheegay inuu mugaab arrintan si shakhsiya ugala heshiiyey qaar ka mid ah xogeynada xisbiga. eedaha qaar waxaa ka mid ah in dana shakhsiya la isdhaafsaday. guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaale oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa si weyn ugu hor yimid go'aanka aan loo dhammayn ee uu gaaray ku-xigeenka xogayaha guud ee xisbiga JSB xuseen sheekh maxamuud. waxaa eedaha madaale ku jirtay inuu musuq maasuq dhacay, taasoo loo fahmay inay dana dhaqaale meesha soo galeen. waa dharbaaxa culus oo ku dhici doonta madaxweyne xasan sheekh haddii ay sax noqoto in musharaxnimada xisbigiisa dana shakhsiya lagu heli karo ama lagu weyn karo oo aanay jirin afkaar iyo cod lagu kala adkaanayo. xiriiro shakhsi ah oo adduunka TV uu la sameeyey qaar ka mid ah madaxda xisbiga JSB, waxaan ku xaqiijinnay inaan laga tashan weli go'aanna aan laga gaarin cidda xisbiga ku matali doonta tartanka maamulada banaadir, galmudug, hirshabeelle iyo koonfur galbeed. sidaa awgeed, sheegashada mugaab iyo doodda madaale waxaa sax u dhow doodda madaale. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la xaqiijiyey inuu arrintan ku soo baxay isagoo dhinacyada u soo jeediyey inaan tillaabo kala la qaadin ilaa uu ka yimaado. xogayaha guud ee xisbiga xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa ayaa la sheegay inuu ka cudur daartay inuu arrintan ku dhawaaqay isagu. sababta oo aan ogaanay oo 2 qodob ah, warbixin gaar ah ayaan uga hadli doonnaa. madaale wuxuu weli haystaa taageero badan oo xisbiga dhexdiisa ah iyo afkaar loo yaqaano inay raacsan tahay siyaasadda madaxweyne xasan sheekh, halka uu mugaab haysto qasnadii gobolka banaadir, waxaana la eegayaa lacagta iyo aragtida midda ku xoog badan gudaha xisbiga xasan sheekh.